waxaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya lagu soo gabagabeeyay wadahadal u dhaxeeyay madaxweynayaasha dowlad deegaanada Soomaalida iyo Canfarta kaasi oo xal loogu raadinayo dagaalo maalmihii la soo dhaafay labada qowmiyadood ku dhaxmaray qaybo ka mid ah gobolka City. heshiiska waxaa qalinka ku duugay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Canfarta Awal Arba. heshiiska nabadeed ee ay labada madaxweyne ka gaareen colaadii labada deegaan u dhaxaysay waxaa horkacayay wasiirada nabadda ee dalka Itoobiya Mufriyat Kamil. labada deegaan xadka ay wadaagaan waxaa ku dhaxmaray dagaal uu dhiig badan ku daatay, shacab badanna ay ku barakaceen. shucuubta Soomaalida iyo Canfarta ayaa marar badan ku dagaalamay deegaano ay labada deegaan lahaanshiyahooda kala sheegtaan sida Candhuufa, Cadeyti iyo Garbaciise iyo tuulooyin kale oo ku yaala xadka ay wadaagaan deegaanadaasi. iyadoo ay taagan tahay colaadda labada deegaan oo aan xal waara laga gaarin sheegashada dhulka la isku hayo, waxaa xaaladda sii huriyay guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya oo soo saaray go-aan ah in 8 tuulo oo xadka labada deegaan ku teedsan inay doorasho ka dhacayn, shacabka deegaankana ay codkooda ka dhiibtaan tuulooyinka u dhow ee ay gaari karaan. go-aanka guddiga doorashooyinka oo ay si weyn uga biyadiideen maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, iyaga oo qoray warqad ay ku sheegeen inay marnaba aqbalaynin dhul uu deegaanka Soomaalida leeyahay in deegaan kale la hoosgeeyo. deegaanka Canfarta dhankooda waxay ku doodayaan in tuulooyinka 8 ah oo guddiga doorashooyinka go-aanka ka gaaray la hoosgeeyo deegaanka Canfarta, doorashada soo socotana ay ugu dhacdo deegaankaasi. guddiga doorashooyinka dowladda dhexe ee Itoobiya go-aanka ay gaartay waxay u sababaysay inta xal waara laga gaarayo qadiyadda tuulooyinka ay maamulada labada deegaan isku haystaan, inay xal u aragto labada deegaanba inay halkaasi doorashada ka sameyn si looga gaashaanto isku dhac dambe oo yimaada. xukuumaddii deegaanka Soomaalida ka arriminaysay intii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar, tuulooyinka Candhuufa, Cadeyti iyo sidoo kale Garbaciise waxay siisay deegaanka Canfarta iyada oo loo qoray warqad rasmi ah oo dhulkaasi deegaanka Canfarta lagu hoosgeynayo. hase yeeshee golaha wasiirada ee dowlad deegaanka Soomaalida oo uu hogaaminayo Mustafa Cagjar ayaa sanadkii hore laalay heshiis ay dowladda dhexe ee dalka Itoobiya taageeraysay oo deegaanada Candhuufo, Cadeyto iyo sidoo kale Garbaciise oo ka tirsanaan jiray dhulka Soomaalida lagu hoosgeeyay maamulka Canfarta, balse tan iyo xilligaasi ay ka dhacayeen rabshado u dhaxeeyay Soomaalida iyo Canfarta. colaadan oo deegaankaasi ka taagneed labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa ku nafwaayay dad ka badan 400 iyada oo hanti intaasi aad ugu badanna ay ku burburtay.